Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to Ahula Academy. As you see on the board, this is lesson 3. In lesson 3, we are going to see demonstrative words. waxaan ku guda jirnaa wali demonstrative ka ayaan ku guda jirnaa waxaan soo arnay demonstrative 1, demonstrative 2, demonstrative 3 today. For the demonstrative 3, we are going to complete kuwii aan soo dhaafnay, kuwii aan ka tagnay ayaan rabaa inaan ku dhamaystirno. waxaan soo arnay this iyo that aan soo arnay. So maantadan insha Allah waxaan rabnaa inaan barano labadan ayaan rabnaa inaan barano oo ah these iyo those aan rabnaa inaan aragno marka insha Allah aan isla socono. eraygan these waxaa weeye wax badan oo ku dhow ayaa horta loo isticmaalaa markaan fiirino these dhawaaqiisina waxaa la yidhahdaa these kan asana waxaa la yidhahdaa those waxaana loo isticmaalaa wax badan oo kaa fog ayaa loo isticmaalaa shayga hadday badan yihiin ay kaa fog yihiin ayaa loo isticmaalaa hadday one aan sheegayni ma hadda waxaan rabnaa inaan sheegno labo iyo wax ka badan ayaa rabnaa inaan sheegno. Those are used to one or more things that are far away and lost ihmala. So let's look them as a part. So as usual that we have these وحنا نحن استعمالها شيء كيف وحنا نستعملها those نسلك كلاته these وحنا نستعمل واحد كله وبلا those وحنا نستعملها واحد كاف واحد بدنا كاف ولا استعمالها. So let's look the word these and here. Let's look the word these. So this is used to or more things that are near. حلقة كلمة is two or more things that are near. وحلقة كلمة حلقة لو واحد كان بدل كافك أيالله استعمالنا. نسمع. So تصارح الكلمة. Let's look examples here. Examples we have what? Some of the examples like this وحنقول كرنا. These are lions. You see? ماشي محي قاعدتي اسبوع قاعدتي ما هو يعني استان وحين تصير إلى بديه هنا جمع مركب حلنا these are lions وحلو اسبدلها هذا اسم استعمالنا لكن لازم نستعمله أيان استعمال so these are lions كواني ولبحيو so كلته وحلنا these are knives. These are knives ومندو يعني هل مندي وحكي بدنا على هذا knives these are knives I see so this is called what a knife so these are knives كوني ومندوين مند أمتوريس أو تكانب so these are lions these are knives كوني وحيو كوني توريال. So example 3 we have these are pens. These are what? These are pens. Pens حلو القلموها. These are pens. These are pens. So let's look here. Those and here another. Those yeah.
So erayga those waxaa loo isticmaalaa wax badano ka fog ayaa loo isticmaalaa. Is used waxaa loo isticmaalaa two or more things laba iyo wax ka badan that is far away. Yani aad u fog ayaa loo isticmaalaa. That is far away. Taasoo aad u fog ayaa loo isticmaalaa. Let's do examples also. Examples aan fiirina markaa. Those are clouds. Those are clouds. Clouds waxaa la yiraahdaa daruuro. Those are clouds. Kuwaasi waxaa weeye daruuro waay. Those are what? Those are clouds. Those are clouds. Kuwaasi waa daruuro. Those are clouds. Kuwaasi waxaa weeye daruuro weeye. Those are clouds. Kuwaasi waxaa weeye waa daruuro. daruura ama hawal saab taqaanaa. Okay, number 2 we have those are stars. Those are stars. Those are stars. Kuwaasi waa xidigo. 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 Number 3 we have those are elephants. Those are what? Those are elephants. Elephants, ay markay badan yihiin waa. Those are elephants. Elephants. Those are elephants. Those are elephants. Those are elephants. Kuwaasi waa maroodiyaal. Those are elephants. Elephants waxaa la yiraahdaa maroodi. Those are elephants. Elephant waxaa la yiraahdaa maroodi. Those are elephants. Elephants waxaa la yiraahdaa maroodi. So those are elephants. Kuwaasi waxaa weeye waa maroodiyaal. Marka guud ahaan intaana ayaan rabnay inaan kala saarno casharkeeni demonstrative words. Insha Allah waxaan balanaa casharka xiga hadduu Ilaahay yiraahdo. Thank you very much.